Lambar kow gobolka Taybat oo maamulo Shiinuhu ayaa wax ka jira dhaqan la yaab leh. Gabadha ayaa waxa la saarayaa geed waxaana la hoos istaajinayaa ilaa 20 nin oo sita dhangado. Haddaba ninkii gabadha guursanaya ayaa waxa lagu oranayaa gabadhaada geedka ka soo deji ragaana dhaaf. Haddaba ragga ulaasita ninkan way casaynayaan ushaana weela dhacayaan. Kii uusha ka qabta ama uusha ka qaadahay wuu ka fadhiisanayaa. Kii kalena wuu casaynayaa ilaa intuu gabadha gaadhayo. Lambar 2 waddanka Malawi. Waddanka Malawi waxa ka jira dhaqan la yaab leh. Ninku waxa uu joogayaa xaafadda gabadha isagoo aan isdhaqaajinayn. Marka labadaas hadday dhamaadaan gabadhuna ay ku qaraacdo saasi ku guursanaysaa haddii kale waa la eriyayaa. Lambar 3 Jaclan waa gobol ka mid ah Suudaan waxaana ka jira dhaqan la yaab leh. Waxa la isugu yeedhayaa labada heer ee ninkii gabadha. Ninka la soo istaajinayaa waxaana la dhacayaa si bitoor. Hadduu sadamqado oo xanuunsado ninkaas gabadha guursan maayo. Haddii kale xanuunsan waayna gabadha wuu guursanayaa. Lambar 4 Scotland. Scotland waxa ka jira dhaqan la yaab leh. Ninku markuu soo guursado gabadha wuxuu ku dulqabayaa wasakh kasta iyo uska kasta. Haddii gabadhaas diido gabadha wuu ka noqonayaa. Haddii se yeesho ay istaagto baari noqoto ninkaas gabadha wuu guursanayaa. Haddaba dhowrka dhaqan aan soo sheegnay badankoodu muslimiin maaha wax diin haystana maaha. Haddaba waxaan isla eegaynaa dhaqankeena Soomaaliyeed ee suuban iyo dumarkeena wanaagsan. Haddaba bariyahan dambe waxaanu arkaynay dumarka waa la afduubtay, dumarka xaq waa ka maqan, dumarku waa sidan. Walaaladey waxaan leenahay kala saara dhaqanka iyo diinta. Si kasta u xumaado dhaqanku iyo diinta lagu xirin, diintana yaan la dhaleecayn. War adduunka qof kasta dhaqan buu leeyahay ama dal kasta dhaqan buu leeyahay ama ha xumaado ama ha wanaagsanaadee. Haddaba Soomaalidu waxa oran karnaa waa dadka quriya ee ugu dhaqanka wanaagsan xagga diinta iyo xag kasta tahayba. Video hore kaga soo hadalay in Soomaalidu ahayn asalkeedii hore dad wanaagsan oo diinta jecel diintana ku adag. Waxa arkay qaar badan oo leh war dhaqanka Soomaalida waa dhaqan adag, waa dhaqan jaahilnimo oo diinta ka fog. War waxaan leeyahay marka hore soo akhrista buugta wax soo mudaalacaya wax soo eega markaas wax ogaan doontaane. Waayo qofka bini'aadanka marka hore asalkiisa waxa uu ahaa jaahil, laakiin qofka hadduu dib wax ka barto ayuu ka baxaa jaahilnimada. Waxaan leeyahay haddaad kor soo qaadin oo aanad wax akhriyin adduunka waxa la isku dhaafaa wax akhris iyo wax mudaalacayn wax dhageysi walow cilmi dhagoodna ha ahaadee. Haddaba fikradaada commentiga noogu reeb dhaqanka la yaabtay oo aad u qaadan weyday. Soo noqor dhaqamada Soomaalida kuwa ugu adag ee aad la yaabtay. Wassalaamu calaykum.